waxaan maanta taagannahay garoonka jenaraal maxamed abshir ood og tihiin astayntiisu inay soo bilaabantay allah u naxariistay xilligii cabdullaahi yuusuf qayb uu ka soo qaatay dhismihiisa qayb jenaraal cadde madaxweyne cabdiraxmaan uu qayb weyn ka qaatay sidii loo heli lahaa dhismahan madaxweyne cabdiweli uu u dhammaystiri lahaa inuu fari galo aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradeena aan nasiib u helnay falaydkii u horreeyey eba ee ah international carrier oo adduunkao dhan ku xiran dabcan garoon international u ahaa inuu maanta kalo waxaan aad uga mahad celinayaa intii ka soo shaqaysay dhammaan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa CEO-ga Ethiopian Airline iyo Regional Director Yamani iyo deputy-giisii oo nala socday maalintii hore sida runtii kalsoonida leh ay go'aanka codsigeennii ay intay u qaateen weliba si degdega oo dhow u fuliyeen waxaan ku faraxsanahay in maanta bulshada reer Puntland oo aan ogahay caqabadaha ka haystay isku xirka falaadyada caalamiga ah inay maanta guushaas ay noo soo hoyatay runtii waa maalin taariikheed waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan dadka reer Puntland siday horumarka iyo nolosha u ilaashadeen oo ay u rabaan inay hor u sii maraan waxaan runtii ka faa'iidaysanayaa maanta taariikhdaas aan ka soo sheekeeyay horumarka waxaa gaarsiiyey waa hoggaan Puntland waxa ay kaga duwan tahay Soomaaliya inteeda kaleeto aan rajaynayno inay ka baxdo waa hoggaankaas mas'uulka ahaa oo dadkiisa u naxayay oo danihiisa ka shaqaynayay iyo dadkiisa ku kalsoonaa hoggaankooda oo horumarkaas la garab taagna waxaan aad ugu digayaa dadka danaynaya inay bulshadan burburiyaan inay hoggaankeeda wiiqaan inay dadka dhallinyarada ah ay ku kiciyaan waxaan munaasab ahayn in aan hoggaan uu fiican yahay Puntland baa daliil u ah waxaan qirayaa ninka ku heesay Puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyay inay nagu daydaan bay munaasab ah ma aha in dadka la hareer mariyo mana aha dadka in aan waxaan jirin loo akhriyo horumarku waa u tukuba laakiin hayaanka u soconno waa inuu qeexayaa cadiya cid walbana ay ogtahay in la ilaaliyo u baahan yahay ani ahaan iyo cid kasta oo mas'uul ah anoo magacooda ku hadlay golaha xukuumadda waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalino geedi socodka dalka Soomaaliyeed iyo Puntland bay ugu jirto inay noqdo dawlad lagu kalsoon yahay degan mustaqbal wanaagsan leh adduunka ku xiran dhaqaalaheedu kabco maalgashigu yimaado horumar la isku halayn karo yeelata waxaan runtii maanta aad ugu mahad celinayaa Ethiopian Airline mar labaad oo caalamka iyo Puntland isku xirta dadkeedu way dhibanaayeen waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigooda adag yahay